الله ونحرسته garoonka diyaaradaha aadan cadi ee magaalada Muqdisho waxa laga soo dajiyay maydka marxuumad Saara Sheekh Ismaan oo kamid ahayd haweenka Soomaaliyeed kuwooda ugu dhaqdhaqaaqa badan marxuumada ayaa ku geeriyootay dalka Mareykanka waxaana maydkeeda garoonka diyaaradaha aadan cadi ku soo dhaweeyay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka Jubbaland gaar ahaan madaxda ugu sareysa xildhibaano ka soo jeeda deegaanada Jubbaland kuwa ku matala dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyiin ka tirsan dawladda ururka haweenka qaranka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada marxuumada Allah u naxariistee waxay u dabdhaxaad u ahayd dawladnimada Soomaaliya waxa ay ka soo qayb gashay dhowr shir oo Soomaaliya dawladnimadeeda dib loogu dhisay laga soo bilaabo dawladii arta lagu soo dhisay iyo sidoo kale dawladihii ka dambeeyay waxay inta badan marxuumada xoog saari jirtay ka shaqeynta arrimaha bulshada iyo nabadda meedkeeda marka laga soo dejiyay garoonka diyaaradaha marxuumad Sahra Allah u naxariistee waxa salaada janaasada lagu la dukaday isla garoonka Muqdisho qaybihii kala duwan ee ka soo qayb galay ee isugu jiray mas'uuliyiinta dawladda kuwa Jubbaland iyo qaybaha bulshada ayaa guud ahaanba waxa ay ka sheekeeyeen Allah u naxariistee marxuumad Sahra waxyaabihii lagu xasuustay iyo sidoo kale waxyaabihii ugu weynaa ee qabatay anigoo ku hadlaya afka waftiga ka yimid Jubbaland oo runtii isugu jira madaxweyne ku-xigeenka golaha wasiirada iyo xildhibaanada waxaanu si tiiraanyale uga tacsiinaynaa maama Sahra oo runtii ahayd qof ku weyn ummadda Soomaaliyeed mar hore iyo mar dambaba oo ogtihiin waxa ay ahayd khaasatan reer Jubbaland u ahayd hooyo iyo saldhig waxaan leenahay samiri iimaan Allah ka siiyo ummadda Soomaaliyeed dhamaan ahalka ka baxday qaraabada ummadda Soomaaliyeed inta waxaan u tacsiinaa waxaan la rajacoon ee Zahra Allah u naxariiso jannada Allah ka waraabiyo Zahra Sheekh waxay qof qaran bay ahayd oo Soomaaliya maqaam weyn kaga jirta waan ka xunahay geerideeda waxaan u tacsiinaa dhamaan inta ka tagtay ummadda Soomaaliyeed qoyskeedii iyo ilmaha ka tagtay iyo reerkii ka tagtay iyo dhamaan qoyskooda marka Allah u naxariisto maanta bisha 14 ay tahay maalin Isniin ah Allah u naxariistay dadin Saara Sheekh Xuseen waxay ahayd halyeey ugu weyn Soomaaliya oo dhan gaar ahaan marka haweenka waxay ahayd eedo halyeey Soomaaliyeed ah maanta ma dhihi karno qoysay ka baxday Soomaali weyn ayay ka baxday waxaan uga tacsiyeynaa dhamaan Soomaali weyn meel kasta ay joogto eedadin Saara Sheekh Xuseen Allah u naxariisto gadaasheeda Ilaahayna ma fidneeyo eedo waxay ahayd halgamaa ah taariikhdeeda aad u fog tahay taariikh dheer leh waqtigii xurmadoonka waqtigii muxuu ahaa berisamaadkii waqtigii dawladda ay burburtay 2000 carto waxay ahayd hooyooyinkii muxuu ahaa joogay oo wax ka soo yegleelay dawladda maanta lagu muxuu harsanaayo waxay hooyo Soomaaliyeed waxay hooyo dadkoo dhan u dhaxayso oo qoys kaliya aan ahayn inna lillahi inna ilayhi raaji'uun eedadan way naga dhimatay aan eeda kaliya iimaan saaxiibtay ahayd la taliyahayga ahayd marka Allah u naxariisto wax kale oo dhihi karo malahan Saara Sheekh Xuseen Ismaan arkiibi dawladda ayay tahay waxay ku darsatay dan inay tahay arkiibi gabdhaha Soomaaliyeed soo barbaariyay Ilaahay waxaan ka tuugaynaa in jannat firdaws oo geeyo waxaan Ilaahay ka tuugaynaa iyadoo kalmaba noo soo baxaysay qof ad Sahro xasuusteeda si dhaqaajin karta in Ilaahay gabdhaha Soomaaliyeed u sahlo Allah u naxariistee marxuumad Sahra ayaa lagu wadaa in lagu aaso magaalada Muqdisho isla markaana aas qaran loogu sameeyo gudaha Muqdisho waxaana sidoo kale aaskeeda la rajaynayaa inay ka soo qayb galaan mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa Jubbaland Maxamed Cabdi Xasan M24 Somali TV Muqdisho